السلام عليكم. goordhaweyd waxaa hadla mid kamida wasiirada kuwa dagaalka oo lagu magacaabo Benny Gantz. Benny Gantz ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu uga hadlay xaaladda magaalada Gaza iyo jahwareerka ciidamada Israa'iil ku dhaxaysta gudaha magaalada Gaza. Sidaasi oo kale waxa uu weerar ku qaaday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagoo markaasi ku handaday haddii bisha Juun 8 xaaladda magaalada Gaza uu wax ka bedeli waayo ninka lagu magacaabo Netanyahu in xukuumadiisi uu ka bixi doono taa oo macnaheedu tahay haddii Benny Gantz uu ka baxo xukuumadda Netanyahu gabi ahaanba iyadana ay burburi doonto oo Israa'iil loogu dhawaaqi doono in doorasho markaasi loo dhaqaaqo marka dhiigga ayuu caawa ku kiciya Benny Gantz ninka lagu magacaabo Netanyahu khilaafkii xoogganaa ee markaasi ka dhex jiray wasiirada kuwa dagaalka ayaa aad u sii xoogeysanaya sidaasi oo kale Netanyahu ayaa shirki uu qabtay ninka lagu magacaabo Benny Gantz kadib hadlay waxa uu sheegay in Benny Gantz uusan ka filanayn hadaladan aadka u kulul oo uu filayay in Benny Gantz uu weerar uu ku qaado Hamas maadaama Hamas ay maanta oo kaliya 20 kamida ciidamada Yuhuudda ay ku dileen dhanka bariga Rafah marka Netanyahu wuxuu leeyahay waxa aan filayay waxay ahayd in Benny Gantz uu weerar uu ku qaado ururka Hamas iyo Yahya Sinwar oo ma aanan filayn in annaga uu nagu soo jeesan doono oo markaasi usha uu nala dhici doono taa marka waxay muujinaysaa khilaafka dhaxdooda ka jira in maalinba maalinta ka dambeysa uu aad u sii badanayo banaankan u soo baxayo marka Benny Gantz waxa uu wacd ku maray haddii la gaaro bisha Juun 8 oo Netanyahu uu la imaan waayo qorshaha dagaalka kadib haddii ciidamada Israa'iil ay ku guuleystaan in Hamas ay markaasi jabiyaan ama guud ahaanba magaalada Gaza ay gacanta ay ku qabtaan waxa dhici doona haddii ciidamada Israa'iil ay magaalada simaamulayso ama qaramada midoobay loo dhiibi lahaa ama mid kamida wadamada Carabta magaalada Gaza gacanta laga saari lahaa marka Benny Gantz wuxuu leeyahay ninka lagu magacaabo Netanyahu waa ninka diidan dagaalka magaalada Gaza iyo qorshihiisa ninka qasaya marka waxa banaanka u soo baxaya iska qabsigoodii oo aad u sii balaaranaya dhanka kale sidaasi oo kale ninka lagu magacaabo Benny Gantz waxa uu ka hadlay wada hadallada lagu kala bedelanayo maxaabiista ay kala haystaan Hamas iyo Israa'iil ayuu wuxuu uu sheegay in Yahya Sinwar uu yahay ninka fasahaadka ka wada hadalladaasi Yahya Sinwar inuu yahay ninka mar walba rabshada ka kicinaya wada hadallada taas oo laftirkeeda warbaahintii caalamka iyagoo xaqiiq og hadana la yaab ay ku noqotay waxaynu la soconnaa cidda waxa diidan in wax la cuno diidan in wax la cabo diidan in dadka gurmad la gaarsiiyo diidan ma ahan Hamas waa Israa'iil marka taa bedelkeedii halka laga filayay in Netanyahu uu usha uu la dul dhaco arinta wada hadallada ayuu wuxuu ku bedelay Yahya Sinwar oo wuxuu ku tilmaamay Yahya Sinwar inuu yahay ninka mar walba ka warqaba Israa'iil halka ay ka jilicdahay Israa'iil halka ay ka xanaaqayso oo mar walba wada hadallada ay markaas la isku soo dhawaanayo ninka arinta wax ka qaldaya taa bedelkeeda waxaynu la soconnaa in markii maalin dhaxdaasi hogaamiyaha ururka Hamas Ismaaciil Hani uu aqbalay wada hadalladii iyo xabad joojintii ka hirgal lahayd magaalada Gaza cidda diiday ee gaashaanka u dururtay inuu yahay Netanyahu isagoo markaasi ku marmarsiyooday in qodobadii Hamas ay soo bandhigeen aysan ka warqabin marka hadda odaygii Netanyahu ahaa dhiigga ayaa caawa ku kacsan ul uusan filayn ayaa lagu dhuftay ul uu filayay in Hamas lagu dhufan doono ayaa dhabarkiisii laga yeeriyay oo haddii 8 Juun la gaaro xaaladda magaalada Gaza ee ciidamadooda ay ku baaba'ayaan oo xal la imaan waayo halkaasi oo in dagaalka markaasi uu joojiyo oo labada dhinac ay kala bedeshaan maxaabiista ay kala haysteen ama in ciidamada Israa'iil halkaasi si fiican ay ugu dhamaadaan laakiin magaalada Gaza ay qabtaan su'aasha isweydiinay marka waxay tahay magaaladan haddii la qabto yaa gacanta ku hayn doona ciidamada Israa'iil ma awoodaan in gudaha magaalada Gaza hal maalin ay ku sugnaadaan meel walba ay cabsi ka qabaan marka Benny Gantz ushiisii way caddahay wuxuu taagan yahay 8 bisha Juun ayaa inoo balan inaga iyo ninka lagu magacaabo Netanyahu sidaas oo kale inta shirki jaraa'id uusan qaban Benny Gantz ayuu caawa si gaar wuxuu la kulmay qaar ka tirsan wasiirada kuwa dagaalka
kuwaasoo arrimo gaara uu kala hadlay. marka xaaladda dhexdooda ayay yani waxaa ka taagan is-afgaranwaa. sidaasoo kale waxaynu la soconnaa habeenkii xalay ahaa wasiirkii amniga ee yuhuudda Itamar Ben Gvir yani inuu bistoolad uu la soo baxay oo shacabkii yuhuudda uu doonayay inuu rasaas ku furo kadib markii shacab caraysan ay dhagaxaan ku tuureen isaga laf ahaantiisa. marka Israa'iil shacabkii iyo waxa isku kacsan xukuumadii, shacabkii iyo wasiiradii ayaa isdiidan, wasiiradii dhexdooda ayaa isdiidan, ciidamadoodii habeen iyo maalinba qaniye ayaa ku socota oo maalin walba dadka yuhuudda oohin ay qowraha la taagan yihiin. marka xaalad xun ayay Israa'iil gashay. caawana yani dabkii shidnaa ayuu ninkan lagu magacaabo Benny Gantz dab ku sii holciyay. waa baasiinkii ayuu dab sii qabadsiiyey. hadiiba maanta oo sabti oo kaliya 20 ka mid ah ciidamadoodii markaas la dilay, taangiyo badan laga gubay, diyaaradaha loo yaqaan helicopterka Abaja laga soo riday. Israa'iil marka yani 10 xun ayaa loo qoray, 10 physics iyo waxa loo qoray xisaabaadka iyo science ayaa maanta loo qoray. dhanka kale gudaha Israa'iil waxa caawa ka taagan banaanbax aad u weyn. shacabkii yuhuudda oo dhan ayaa isku soo banaanbaxay iyagoo markaasi ku qasbaya xukuumadda uu hogaaminaya Netanyahu inay xilka isaga dagto ama sida ugu dhaqsiyaha badan markaasi ay ogolaato heshiiska xabad joojinta ay Xamaas horay u ogolaatay. waxaynu la soconnaa 7 Oktoobar markii uu dagaalku u bilowday oo xukuumaddii Netanyahu ay weerar ay ku qaaday gudaha magaalada Gaza. shacabka Israa'iil har iyo habeenba banaanka ay taagnaayeen, kuleel iyo qabowba banaanka ay taagnaayeen, laakiin cid dhag jalaq u siinaysa ma jirto oo dagaalkii ayuu iska sii watay ninka lagu magacaabo Netanyahu. Netanyahu xilligaasina waxa aad u ilaalinayay oo kursiga ku hayay ninka caawa hadlay oo ah Benny Gantz oo lahaa ninkan Benny Gantz oo mar walba yani Netanyahu ka ilaalinayay in isaga iyo shacabka isku dhacaan. laakiin caawa Benny Gantz kuleelka ayaa soo taabtay. wasiirada dagaalka ee go'aanka soo saari jiray kuleelka ayaa taabtay oo maxaa yeelay ciidankooda yani maalmahan ugu dambayso 10 yani maalmood ugu dambaysay taangiye badan ayaa lagu gubay, ciidamo badan ayaa gudaha magaalada Gaza gaar ahaan Jabaliya iyo Rafax looga dilay. kuleelka iyo dhiigkarka ayaa ku sii kacaya. insha Allah wixii kale soo kordhana halkan ayaan ugu soo gudbin doonaa walaalkiin Xasan Cusmaan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.